عليكم أصحابتي سيديتهين ما يسكفي عنتهين الحمد لله أنا وافي عنها هاي وحنا جنينتها بش برواقة خيرية عافماذا كل شيهين ما أنت فيديو كان وحن دون إنتني صوريقو ملها شن بلاد يمكن نقنصا but إلهي باقورينتي يمكن نقطع so ما أنت وحن بلعبنا برنامج كيني عصب كها أو barnaamijkan waxaan bixinayaa ila tali caafimaadka ila tali so mar hore baan ii soo qoray oo niga eri ii soo dira su'aaladan ii soo qora ama voice message ii soo duuba insha Allah jawaabta videoyaal baan igu waxaani waayo dad badan baa ii soo qora messageyaal oo questions ku way soo noqotaa oo su'aaladu waa isku mid so waxaan sirri dad badan aan ka faa'iideystoon su'aalada marka ii soo dirtiin waxaan ka dhigay subject weyn oo markaana aan ka jawaabi doono insha Allah dad badan baa ii soo diray message audio voice messages laakiin I don't know hadda doonaysin inta codkiina laga maqlo YouTube so insha Allah marka ii soo dirtiin message-ka voice message-ka ii sheega aad doonaysin inta obviously magaciina waxa ma sheegay laakiin waxa fiican inta dadku dhageystoon su'aashiina so iso sheega dadonista YouTube dadonista YouTube voice message kina soo dhigo ama dadonista bas inta akhriyo message kina so inshallah imika waxba ma akhrin doono so message kan ugu horeeya waa gabadh iso dirtay waa voice message so waxay su'aasheedaan ii sheegi doona inshallah so overall waxay tiri waxaan yahay hooyo cusub laba mataano baan dhalay laba mataano 4 bilood baan leeyahay betri waxaan joogaa Switzerland problemkaygu gabadhan hurdada ku yar habeenkii ma seexato yaalkii koleyba hurdadu waxay uga yaraatay sababta hurdadu ugu yartahay waa labada mataanay dhashaba day 4 saacadood ama 3 saacadood bakol kacayo caano u baahan laakiin waxay tiri imika nafteedii like imika ahaan isma fahmayso timahayga daata bay tiri nacam aamusaan baa ku dhacay so waxba ma kala garanayso basically so waxay tiri fadlan ila tali so anu sidaan u arkayo kolley wax badan way noqon kartaa ininkuna taladiina oosta soo qora anu waxaan oran lahaa kolleyba imika horta hooyo imika dhashay badanka so 60% hablaha dhala waxaa ku dhaca postpartum depression waxa la yiraahdo anigu in yar way taabsatay beentani ma sheegayo maalimihii ugu horeysay adu malaha 6 bilood ugu horeysay tough aad bay u adkeed hurdadeedu way xumaad but alxamdulillah markii dambe wax badan baan bedilay oo hurdadeeda ani ii fiicnay inankaygana hurdadiisa isagana u fiicneeyay marka qof kastaba waa intaa you know you have to find waa intaa heshid wax adig kuu socda anigu for example inankaygu markuu 6 bilood noqday marka wax kasta baan tijaabiyey intaan hurdadiisa u fiicnayo habeenka waa intuu seexdaa because 6 bilood kadib ilmuhu waa intuu seexdaa at least 9 hours habeenkoo dhan waa intuu hurdaa so anu inankaygu sideedoo kale buu yahay baa u maleeyaa anu iga raacay hurdadeednu waa hurdo fudud marka maqsinka anu matalan markaan seexanayo waxaan u baahanyaa maqsin madow oo qabow oo nadeed waxba lama qalinada in yar beerkasa loo furo waan soo jeedaaba so waxaan u maleeyaa isagu intuu sidaas yahay so 6 bilood markuu saa u noqdaba maqsinkiisii baan khalaas u bedilay so maqsinkiisu horta waxaan ugu bilaabay naps so wuxuu seexanayay galabtii buu yar seexanayay and then uu la bartay maqsinka markaa khalaas waxaan u bilaabay 6 bilood markuu saa u noqdayba intuu habeenkoo dhan xaggaa seexdo waxaan haystaa monitor imika maqsinkiisu hurdaa monitor xaggaa buu yaalaa markaa wax kasta aan ka maqlayo so monitorka sirteedu ag yaalaa marka xaggaa baan ka daawanaya xaggana waan ka maqlayaa markaan sidaa uu bedilay maqsinkiisa aan geeyay asxaabtay nacam waxaan leeyahay isaga kow hurdadiisi way u fiicnaatay habeenkoo dhan buu hurday waayo maqsinka dee wax dhiidhaadha ma jiro sound machine waa u shidoode sound machine-ku waa wax
socdo and other sounds ka codkoo dhan de xirayo so markaa maqsinkiisa saa uu ugu bedelay buu hurdadiisa isagu fiicnaatay anigana hurdadeeda ii fiicnaatay taa waa ta ugu horeysaan kula talin karo waa find a solution because hablo badan baan garanayaa oo iyaguna hurdadoodu saas u xun tahay laakiin ciyaalkoogu ag hurdoon oo sariirta isla seexdoon anigu weligay inankaygu sariirtay lama seexan laakiin xoolkiisa weligiibana ag yaali markuu dhashay so xoolkiisa seexiyay waayo anigu waxaan ka cabsan intaan de isku rogo wax kastaa dhici kara so taa ugu horeysa nila talin lahaa waa taa ilmaha yar maqsinkiisa geeda maqsin kale u leedid ama intaa seexan ama 2 saacadood ama 3 saacadood maqsinka xool u sameeyo oo gooni meel u de isagu misayadu iska lahaanaso oo de gooni ah u sameeya insha Allah talabadan kula talin lahaa walaashaday waa cuntadaada kolleyba nutritionku waa very important anigu waxaan iska dareemaa horta markaa wax sonkor badan oo cuno sonkortuna ma aha sonkorta cadaanka waa malabka waa wax oo dhan ay sonkorta dhiigaaga kicinaya malabka khudradda aad u macaan sida cambada ama muus badan hadaa cuno ama timir waxaan iska dareemaa horta sukale jirkayga sukala noqdaa hurdadeeda iga xumaataa ta kale iska ilaalina waa glutenka badanka waa nii sheegaa glutenka waa very bad asxaabtay haddaa iska ilaalin kartiin iska ilaaliya inankayga isaga wax glutena ma taabsiiyo gurigayga imanka daycare uu bilaabay so daycareka cuntay ku siiyaan so kollayaba gluten way siiyaan laakiin gurigayga markuu joogo wax glutena ma siiyo insha Allah video doonaysiin ani sameeyo sida glutenka lisaga ilaaliyo waayo iminka way jirtaa daqiiq ama flour gluten free way jiraa furan gluten free waa heli kartaa pasta gluten free waa heli kartaa bariiska isagoo waa iska gluten free naturally boroshkana waa gluten free naturally markaas there's a lot of alternative guys so talabadan kula talin lahaa waa cuntadaada bedel biyo badan cab coffee adaa iska joojin kartid iska jooji waayo coffee subaxdii markaa cabtid dhiigaaga weli ku jira 12 saacadood kadib so duurnimada hadaa cabtid coffee matalan habeenka midnight weli dhiigaaga ku jira marka haday hurdada kugu yar tahay iska yaree coffeega so waa sokorta glutenka coffeega oo dana biyo badan nacab anu sug cagadeedaan itusi marka guys aniga ahaanba way igu adag tahay intaan biyo cabo maalintii so baalkan baan soo iibsaday eegis uu weeyahay waa adu wax gaaray 4 liter qasab maaha baalkan intaa soo iibsatay laakiin cagado waaweyn way jiraan soo iibsada biyo badan cabo waayo biyuhu jirkiina uu baahan yahay dad badan baa biyaha iska iloobaan waa natural waa iska iloobi kartaa especially haddaad dibadaha joogto dhulku iska qaboob yahay so ta afaradan kula talin lahaana waa self care Soomaalidu badanka horta hablaha especially nafteena horta mooyana haday tahay kolleyba dahaad markaa hooyo noqotid waxaa ka fikirsan 24/7 ciyaalkaaga moodagaaga ama gurigaaga laakiin naftiina xasuusta anigu matalan waxaan leeyahay routine xaddii waa maalinteeda toddobaadkoo dhan ama guriga ka shaqeynaya ama cuntaan karinaya ama businesskayga waxanaya ama inankayga haya wax badan dadka kale uma shaqeeya toddobaadkii 7 cishood baa jira 6 cishood dadka kale uma shaqeeya maalinkii laatuma nafteeda isa siiyey waa axadii aniga mooyaan axadii qof kasta wax buleedad baa jecel intay buug akhriyoon wax kasta way noqon kartaa waxaan jecelahay bes inta maalintaas easy qaad iska dhigo Starbucks baan tagaa frappuccino baan soo iibsadaa film yar baan daawadaa wajigayga caleen baan marsadaa adaan u baahan yahay self care-na waxaan tegi massage baan soo samaysani markaas waa u baahan tahay maalin ama a few hours toddobaadkii inta naftaada ka shaqaysid taana waa afaraada aan kula talin lahaa naftaada ka shaqee and lastly maalintii routine yar samayso ciyaalku waxay ku fiican yihiin routine so kolley baad uma taalaan leedahay mataano
igu duceynta ilaahay siiyo mutaana ma leeyihiin laakiin inankeyga waxaan u fiirsaday routine markuu ka baxo iminka saacad buu soo kacaa saacad buu seexdaa cuntada saacad buu cunaa wax kasta routine marka ciyaalku aa gelisid routiinka ciyaalku aad iyo aad bay caawisaa wayna u fiican tahay adiguna way ku fiican tahay peace of mind way garanayaan xilligan wax la seexanayay wax kasta so routine ciyaalkaaga geli adigana routine naftaada so for example 7 habeenimo 7 barka masjidda markaan seexiyo anigu markaas baa samaysani wax yaraan jecel yahay nafteeda dessert aday tahay markaaba meerani waa bas waqtigeyga aniga nafteeda so yes intaa baan kula talin lahaa aday tahay caafimaadka cuntadana desaan kuu sheegay waa muhiim inta cuntadiina badishiin maalimaha ugu horeysa waxaan ku oran lahaa adaa soomi kartid soom waayo soomku uu fiican yahay nafta qalbigu fiican yahay qalbigu dejiyaa jirkana waa detox so adaa soomi kartid soom kolleyba imika hadee ciyaalkaaga ado 4 bilood yihiin oo naas siinaysid ma soomi kartid laakiin hadaa naas siinayeen oo dee caanaha formulaga cabayoon iska soom insha allah so waa kaas walaashaday waxaan rajeynayaa intee videogan ku jawaabtay si fiican oo dee insha allah anakana uun kusoo duceynayna guys comment sectionka gabadhan usoo duceeya ducadu waa qof haddaa wax u qaban karin u duceeyo you know so insha allah videogan naguma dheereynayo xaggan baan kusoo gagabaynayaa haddaa ii haysiin su'aalo fadlan instagramkayga waa kan iisoo qora message iisoo duuba anuu codkan ka jecel yahay marka messageka iisoo qortiin waayo badankiina waa anuu codkan igu jawaabaa so iisoo qora message insha allah ama iisoo duuba waan iisoo badin doonaa videoyaasha caynkana ayga iloobina like-ka aad iyo aad bay ii caawisaa insha allah waa inoo madhow asxaabtay مع السلامة.